wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ma ku hirgeliyay raadiyo Marka codka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed munaasabada xargalon ku jaray raadiyo Marka may ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen wasiirka wasaaradda warfaafinta Ugaas Xasan Abdi Maxamed gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo kan degmada Marka iyo marti sharaf kala Ugaas Xasan Abdi Maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ku hadlay dadaalka wasaaraddiisa iyo wadda baahinta raadiyo ka hadla codka dowladda sidii lanjeeyay lahay guutaan degmooyinka Koonfur Galbeed degmada Markan iyo degmadii lixaad oo lagu hirgeliyay raadi ka hadla codka dowladda maynus aqab iyo kumid hayeen raadi lama kun ee usu gudoonsiyay gudoomiyaha maamulka degmada Marka madaxweyne waxa sharaf inoo amaanta inaad nagala soo qayb gashid mashaariicda kala duwan ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmadan Marka ay ka fulisay oo ay ka mid tahay furitaanka raadiyaha lixaad raadiyaha toddobaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka furan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan dareemayaa madaxweyne idaacadan maanta marka la furo dadka reer Koonfur Galbeed galabta 75% tiradooda meel kasta ay joogaan waa is dhageysan karaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gudoomiyaha degmada oo dhismaha gurigan iyo dhismaha taawarkan iyo shaqaalihii injineerada shaqeynayay intii ay imaadeen gacan weyn ka siinay hawshan saa u qabsoonto waxaan rabaa inaan asagana u mahadceliyo mudane gudoomiye soo dhaw waxaan rabaa madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ila taagan mas'uuliyadda idaacadan iyo qalabkeeda annaga adigan kugu wareejinay 200 xabo oo waxa ku taala raadiyo gaarsiin bulshadaada anigana waxaan qaadan doonaa shaqaale tiro kasta waxa aadeeno waxaan rabnaa cid kasto aad ku aamini kartid mas'uuliyadda hantidan qaran ee dawladeed oo anigu lahayn oo adigu lahayn oo madaxweynaha uusan lahayn dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay leeyihiin laakiin liidka iyo hogaaminta madaxweynaha Cabdicasiis lagu keenay mas'uuliyadda gudoomiyaha maamulka degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Ali Ahmed Waafow maysu ku hadlay baahiyo raadi ee ku jaray degmada maynuusan mahadnaqay wasaaradda warfaafinta iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dadaalka iyo geliyaan sidii degmada Marka iyo aan helo lahaaytay idaacad ka hadlaas afka dowladda aad igu wareejiseen inaan xifdiyo ilaaliyo Soomaaliya ilaaliyo khaasatan dowladda Koonfur Galbeed aan u ilaaliyo mas'uuliyadeedu idin kala wareegay aad iyo aad u mahadsantihiin waxa idinka haynaa idaacaddii oo dhameystiran oo habada ku jirta oo maanta ay isku dhigay Soomaaliya meel walba ay joogtay iskaga dhigay reer Koonfur Galbeed meel kasto ay joogaan iska kala dhageysanayaan waana idinkugu bogaadinaynaa mudane madaxweyne wasiirkay iyo gudoomiyahayga aad iyo aad u mahadsantihiin waa aqbalay amaanadaas culus qaadatankeeda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo daahfuray idaacadda Marka codka dowladda Koonfur Galbeed maynuusan mahadnaqay cid walba oo kaalan ku jeysatay suurtagalnimada idaacadda maynuusan maamulka iyo bulshaduusan ka baaqayntii oo ilaalshadan mashaariicdan lagu fuliyay degmada Marka oo maanta aan furnay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiirka iyo hay'adda oo gacan weyn naga geysatay naga siisay inay suurto gasho raadiyo degmada Marka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed laga bilaabo maanta raadiyihii waa noo furan yahay dadka shacabka reer Marka iyo dadka reer Marka ha la socdeen dawladooda shacabkooda maamulkooda iyo warka iyo wacyigelinta iyo waxay u baahan yihiin si xornimo leh oo la socdeen ha u dhageysteen ha ka faa'iideysteen qalabkan raadiyaalkiina waa loo keenay ay ku dhageysan lahaayeen FM-ka aad iyo aad u mahadsantiin Faisal Maxamed Isaaq TV-ga iyo raadiyaha Koonfur Galbeed degmada Marka